wafdi ballaaran oo uu hogaaminayo madaxweynaha maamulka Hirshabelle ee Soomaaliya Maxamed Cabdi Waare oo in dhawaalaha ku sugnaa magaalada Muqdisho ayaa waxa uu gaaray magaalada Jowhar ee xarunta maamulka Hirshabelle waxaana halkaas loogu soo dhaweeyay si diiran isla durbadii uu tagay halkaas waxa uu bilaabay kulamo oo la qaadanayay qaar ka mid ah mudanayaasha baarlamaanka maamulkaasi Hirshabelle oo uu kala hadlayay arrimaha ku saabsan mooshin isaga ka dhanna oo dhawaan loo gudbiyay madaxda baarlamaanka ee maamulkaasi waxaana mooshinkaasi saxiixay baa la yiri in ka badan 50 xildhibaan oo maamulkaasi ka tirsan oo dhaliilo kala duwan u jeedinaya madaxweynaha maamulkaasi Maxamed Cabdi Waare waxaana qaarkood sheegayaan in madaxweynuhu uu iscasilo warbixinta ku saabsan dib ugu noqoshada magaaladaasi Jowhar waxaa noo soo diray wariyaheena Maxamed Axmed Shirbo wafdi ballaaran uu hogaaminayo madaxweynaha dowlad goboleedka Hirshabelle Maxamed Cabdi Waare iyo gudoomiyaha maamulka gobolka Shabeellaha Dhexe Axmed Meyre Makaraan ayaa dib ugu soo laabtay magaalada Jowhar ee caasimadda dowlad goboleedka Hirshabelle wafdiga ayaa waxaa garoonka diyaaradaha magaalada Jowhar ku soo dhaweeyay madaxweyne ku-xigeenka Hirshabelle iyo gudoomiye ku-xigeenada koowaad iyo labaad ee baarlamaanka Hirshabelle xildhibaano wasiiro maamulka gobolka Shabeellaha Dhexe iyo kan degmada Jowhar wafdiga ayaa waxaa loo soo galbiyay xarunta madaxtooyada Hirshabelle waxaana ka warbixiyay safarada uu ku maqnaa madaxweynaha dowlad goboleedka Hirshabelle Maxamed Cabdi Waare afhayeenka dowlad goboleedka Hirshabelle Daawud Xaaji Ciro magaala madaxda dowlad goboleedka Hirshabelle dib ugu soo laabtay madaxweynaha dowlad goboleedka Hirshabelle mudane Dr. Maxamed Cabdi Waare oo ay la socdaan xubno labada gole ee dawladda ah mudooyinkan dambe waxa uu ku sugnaa magaala madaxda dalka ee Muqdisho isagoo halka u joogay howlo shaqo oo muhiim ah intii uu Muqdisho joogay waxa uu madaxweyne Maxamed Cabdi Waare uu kulamo la qaatay kuwa guud iyo kuwa gaargaar ahba madaxda ugu sareysa ee dalka sida madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya iyo ra'iisul wasaaraha xukuumadda Soomaaliya amuraha ugu weyn ee kulamadoodana waxay ahaayeen arrimaha la xiriira amniga oo runtii aad ogtihiin sidii amniga deegaanada dowlad goboleedka Hirshabelle looga shaqeyn lahaa ciidamada Hirshabelle iyo ciidamada qaranka Soomaaliyeed sida isaga kaashan lahaayeen deegaano badan oo kooxaha cadawga ah ay gacanta ku hayaan sidii looga saari lahaa inta kadib kulamadaasi guul ay ku soo dhamaadeen sida hadda aragtaanba waxa howlgallo xoogan oo lagu dirirayo kooxaha nabadiidka ahba ay ka socdaan deegaano badan oo Hirshabelle ah sida magaalooyinka ama gobolka Hiiraan iyo gobolka Shabeellada Dhexe oo kale oo magaalooyin kamid ah waxa kale oo runtii jirta intii madaxweynaha oo ku sugnaa magaalada Muqdisho waxa uu kulamo la qaatay hay'adaha deeq-bixiyaasha ah waxyaabo ugu muhiimsan ee laga hadlayeen waxay ahaayeen arrimaha la xiriira horumarinta dhawaanna haddii la yiraahdo weekend gudihiisa waxa bilaaban doona ilaa 6 mashruuc oo loogu talagalay dowlad goboleedka Hirshabelle oo ay qayb ka yihiin xarumihii madaxtooyada aqalkii baarlamaanka iyo mashaariic badan dhawaanna sidoo kale waxa bilaaban doona dhismaha wadada dheer isku xirta Muqdisho iyo Jowhar marka kulamadaas ayaa ugu muhiimsanaa kulamadii madaxweynaha dowlad goboleedka Hirshabelle oo madaxda ugu sareysa dalka oo kula qaatay magaalada Muqdisho Maxamed Axmed Shirbo wararka STN Jowhar